tababarkan oo maanta shirkadda loo yaqaan deegaan dhowr magaalada Muqdisho ay ku qabatay waxaa ka soo qayb galay in ka badan 10 maamulo iskuul oo kamid ah iskuulada ugu waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo waliba qaar kamid ah ardayda wax ka barata gobolka Banaadir. Ujeedada tababarka loo qabtay waxa uu ahaa sidii dadkan wax badan looga fahamsiin lahaa arrimaha ku salaysan nadaafadda iyo waliba sidoo kale bilic soo celinta deegaanada ay ku nool yihiin. qaar kamid ah macallimiinta loo xil saaray inay ka bixiyaan casharada tababarkan ayaa waxa ay ku saleeyaan dhinacyada diinta, caafimaadka iyo waliba sidoo kale fayadhowrka deegaanka. haddaba waa kuwan hadaladii goobta ay ka jeediyeen marka ay bixinayeen tababarada. waxyaalaha ilaahay ka waxa kamid ah in nadaafadaada xunta laana maxay nadaafadaada hadii xunta bulshada ayaa mushkil ku noqonaysa bi'adina caafimaad darro ku siyaadinaysa sidaa daraadeed nadaafadu halkaasna leer ugu ifiso qofka nadaafadiisa ay wanaagsan tahay wuxuu noqonayaa qof iimaankiisu uu wanaagsan yahay. sidoo kale nadaafada si kor loogu qaado sharciga islaamka waxay shardi uga dhigtay cibaadada inay ka ansaxdo oo cibaadada salaadii oo kale inay ka ansaxdo waxaa shardi ah in nadaafadii ku hagaagsan tahay. maxaa kamid ah inuu jirkaada uu nadiif iyo daahir yahay oo daahirkii alxadis asqar wal akbar. ugu horeyn markaa fiiriso wasaqdi meelaha ay wasaqaynayso waxa ugu horeeya biyihii, hawada, waxyaabaha kale solidka ah ee maxaa la yiraahdaa wasaqeeya, dhulka intaba maxaa la yiraahdaa waxay isugu jiraan wixii keenaya wasaqda marka iyo meelihii dhibaatada ay gaarsiinayeen. ugu horeyn marka waa maxay wasaq ama wastiga waxa la yiraahdo waa wixii aan loo baahnayn. tusaale shaygan waad isticmaashay faa'iidadii uu lahaa markaad ka dhamaysato uma baahnid markaa inaad iska turto. tusaale caaga aad biyaha ku cabayso hadda faa'iido leeyahay biyaha kuugu jiro biyaha markaad ka cabto muxuu isku bedelayaa wasti ayuu isku bedelayaa sababtoo ah uma baahnid. taas ayaa marka waxa la yiraahdaa wasti iyo wasaq. sidoo kale macallimiintii ka qayb galaya tababarka ee loo qabtay iyo maamulayaasha iskuulada ayaa ina waxa ay ka hadleen dareenkooda ku aadan sida ay u arkaan in tababar caynkan oo kale ay u qabato shirkadda loo yaqaan deegaan dhowr ee ka shaqeysa arrimaha bilic soo celinta iyo nadaafadda. waxaana asal ah oo base ah annaga maadaama muslimiin aan nahay islaamkeena ayaa mar hore ka hadlay barnaamijkan. marka waxaa moodaa jahli naga haysta xagga islaamka naga haysta ayaa wax badan oo khalad ah keenay. haddii islaamkeena aan hoos ugu dagno oo aan caruurteena islaamkii barno oo aan ii sheeg si camaliyan ah aan ii sheeg barnaamijkaas aan u fulino wax badan oo dhaliila oo maanta laga yaabo inay ka muuqdaan madaaristeena ay la weylahay. marka waxaan leeyahay oo hadalkayga aan kusoo koobaya ardadeena aan ku wacyigelino nadaafadu islaamku meeshuu ka taagan yahay. waan aragteen si fardiyan islaamku waa uga hadlay nadaafadii oo qofka shakhsiga nadaafadiisana si gooni uga hadlay bulshadiina si gooni ay uga hadlay. waxaa arkaysaa mesela meelaha soomaalida hadda biyaha ka cabto oo kale baadiyaha oo kale waraha la yiraahdo ama galka la yiraahdo islaamku wuxuu diiday in meeshaas lagu saxaroodo ama lagu kaadiyo. islaamku waa diiday in qofku meeshaas ay ku qubaysato isagoo janaabo qaba. islaamku waa diiday waxaas oo dhan. marka islaamku wuxuu ilaalinaa nadaafada guud ee bulshada iyo in bulshadu aysan ii sheeg meelahaas cudurro aysan ka qaadin ayuu ilaalin. ugu dambeyntii maamulaha shirkadda Axmed Cabdi Axmed ayaa isna goobta ka hadlay waxaana uu sheegay in tababarkan uusan noqon doonin kii ugu horreeyay ama kii ugu dambeeyay balse ay jiri doonaan tababaro kale. waxaana uu u soo jeediyey bulshada Soomaaliyeed inay si weyn uga faa'iideystaan fursadaha iyo tababarada ay bixinayaan shirkaddan deegaan dhowr. meeshan deegaan dhowr casharkan maanta waxay ugu tala gashay bulshada inay wax ku celiso maadaama ay tahay kambani ka shaqeeya nadaafadii wax badan waxay ka aragtay dhibaato badan oo nadaafadii ka jirto culeysyo badan oo jirta awgeed waxay garatay ayadoo cid ku garab taaganaysa jirin in bulshada wax ku celiso seminaaradan. markaa isla fiirinay oo aragnay oo aan la yiri bal intee ugu darana la yiri meesha kaliya bulshada laga wacyigelin karo waa macallimiintu afka wax ku shubaayo maxaa la yiraahdaa ardayda dhagahooda. meesha bulshada laga soo dhisana waa halkaas iskuulaadkii iyo jaamacadihii in laga soo dhiso. marka waxaan yiri bal macallimiintii wacyigelin hala siiyo ha loo sheegay nadaafadii ha loo sheegay dhibaatada ay leedahay meelaha busta iyo magaciisa wax lagu baranayo meelaha maxaa la yiraahdaa bulshada isku imaanayso wasaqda iyo khashinka ha loo sheegay dhibaatadaas macallimiintiina ayaysa intaas ku joojin dib ugu celiyaan. maanta halkan barnaamijka markuu dhamaado insha Allah bidillahi kariim sida iskuulada ku soo ballanay dhammaan iskuulada magaalada waa wada ballami weynay waxaan ballaminay 10 iskuul oo isleenahay waa
ugu dhaqdhaqaaqa rooyin magaalada 10kaas iskuul insha Allah bidil al-karim maanta training kana siinay inta kuma joojinayno cabdifataax xasan kalgacal warbaahinta dalsan muqdisho